waan idin salaamay dhammaan saaxiibada ku xiran channelkeena aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartaan soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idin wadaago xog yar aan kaga hadli doono wararka sheegaya in ay dhimatay ama ay geeriyootay atishada caanka ah ee Kajal daw maxaa ka jira wararkaasi xogtaas ayaan idin isla eegi doonaa saaxiibayaal markaan ku bilaabno atishada caanka ah ee Kajal waa mid kamid ah atishada lagu jecel yahay Bollywoodka atishadan ayaa soo caan baxday horaantii sagaashameeyadii aan dhahe marka la eego Kajal waxay kamid tahay atishadaha markay timaado ugu guulaha badan ee shirkadda caanka ah ee Bollywoodka maalmihii ugu dambeeyay waxaa la isla dhexmaray warar sheegaya in atishadan Kajal ay geeriyootay laakiin wararkaasi waa been abuur oo gabadhan laga been abuurayo sababtoo ah atishadan Kajal waa ay nooshahay ma aysan geeriyoonin weli laakiin waxaa jiro kanaalyo laga leeyahay oo barta YouTube-yada kale marka la eego ama YouTube-ka waxaa jira kanaalis badan oo Hindiya laga leeyahay kuwaas oo yacni wararka barbogandaha ka baahiya jilayaasha ugu caansan Hindiya atishadan horaantii bishaani ama aan dhahe bishii hadda dhamaatay ee January ayay waxaa ku dhacay cudurka caabuq coronavirus laakiin waa ay ka soo kabsatay markii uu ku dhacay cudurkaasi waxaa jira kanaalo badan oo ku sheegaya yacni in atishadan Kajal ay geeriyootay laakiin waa been abuur saaxiibayaal sanadii 2019 ayay ahayd markii Ajay Devgan lagu tilmaamay ama la sheegay in uu geeriyooday xiligaasi amaanday sanadii 2019 waxaa jiray kanaalyo yacni been abuur asigana ka baahiyay jilaaga caanka Ajay Devgan kuwa uu ku tilmaamayaan saaxiibayaal in uu geeriyooday jilaaga caanka Ajay Devgan haddaba Kajal waa ay nooshahay ma aysan geeriyoonin atishadani horaanta bishan hadda aan ku jirno markii ku beegneed 11 ama aan dhahe 11 bishan hadda February markii ku beegneed ayay bilowday ama ay guda gashay shaqada film lagu magacaabo Salaam Vingi atishadan Kajal sidoo kale dhowr maalin ka hor ama aan dhahe 4 maalin ka hor waxay u dabaaldegaysay sanad guuradii 23aad ee ka soo wareegatay arooskoodii iyada iyo sidoo kale Ajay Devgan atishadan ayaana barteeda yacni Twitterka sidoo kale Facebookaba qoraalo kula wadaagtay bahda taageeraha ama bahda taageerta ama taageerayaasheeda aan dhahe saaxiibayaal marka atishadan caanka ah Kajal oo ay nooshahay waxa weeyaan waa wararka hadda sheegaya in Kajal ay geeriyootay waa warar been abuur saaxiibayaal markaan eegno sidoo kale waxaa xusid mudan in bishan hadda aan ku jirno February 19 markay ku beegneed inay u hambaliyeenaysay sanad guurada dhalashadeeda hooyada dhashay jilaaga caanka ah Kajal yacni Ajay Devgan aan dhahe ama Ajay Devgan hooyadiis weeyaane ay sidoo kale 19 February markay ku beegneed sidoo kale u hambaliyeenaysay gabadha lagu magacaabo Kajal saaxiibayaal haddaba intaas ayaan kusoo gabagabaynaa xogta yareed aan kaga hadlaynay wararka been abuurka ay kaas oo laga baahiyey ama laga faafiyey atirshada caanka ah ee Kajal fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkeena like inoo saar janaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar wixii raaya taabto commentiga hoose inoogu reeb sii share garay oo la wadaag asxaabtaada waana ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkeena